Bismillahirrahmanirrahiim kusoo dhawaada saaxiibayaal meel walba aad joogtaan qodobada ugu waaweyn wararka caalamka waxaana ka mid ah madaxda ahlu sunna oo beesha caalamka ka dalbatay in loo furo waddo ay dhuusamareeb uga baxaan si ay u aadaan deegaanka Hurshe. Xaaladda dhuusamareeb oo weli saakay mar kale kacsan iyo rasaas goosgoos ah oo laga maqlayo magaalada Kenya oo ka hadashay eedeyntii cusleed ee uga timi dowladda Soomaaliya. Madaxda xisbiyada qaran oo shir degdeg ah ku yeelanaya dalka Turkiga. Maxaa looga hadlayaa shirka? Xog ayaan idinkaga hayaa. Tiro dad ah oo ku dhintay dagaal beeleedyo ka dhacay Itoobiya iyo Turkiga oo muhaajiriintii hayay ku fasaxay qaaradda Yurub. Haddii aad ugu cusub tahay fadlan daawade subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta aan channelkan soo gelino. Waa subax Sabtiya taariikhda ay ku beegan tahay 29 bisha 2 Febraayo sanadka 2020 intaad maqasheen iyo qodobo kale ku soo dhawaada saaxiibayaal aan ku bilowno dhuusamareeb. Xaaladda magaalada dhuusamareeb ayaa laga dareemayaa saakay deganaan kadib dagaal socday in ka badan 9 saac oo u dhaxeeyay ciidamada dowladda iyo ahlu sunna oo halkaasi ka dhacay. Si kastaba rasaas goosgoos ah ayaa weli laga maqlayaa goobaha qaar oo shalay dagaalku xoogan ka dhacay taasoo ay si iskooda u ridayaan dhinacyadii dagaalamay. Dagaalkii shalay ayaa dhaliyay khasaare nafeed oo xoogan iyadoo ay ku dhinteen dad gaaraya 15 qof oo ah dhinacyadii dagaalamay iyo dad shacab ah halka ay ku dhaawacmeen tiro intaa ka badan. Ciidamada dowladda ee ku dhaawacmay dagaalkii shalay ayaa la soo gaarsiiyay magaalada Muqdisho waxaana la dhigay isbitaalka Digfeer. Dhinaca kale diyaarad siday ciidamo ay dowladdu ka daabushay Muqdisho ayaa gaaray magaalada dhuusamareeb si ay u xoojiyaan ciidamada dowladda ee dagaalka culus kula jira kuwa ahlu sunna. Inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn tirada ciidamadaas haddana wararka qaar oo aan helin ayaa sheegay inay gaarayaan ku dhawaad 300 askari. Dhinaca kale kooxda ahlu sunna ayaa waxa iyagana u soo gurmanaya dagaalyahano la sheegay inay ka imaanayaan baadiyaha oo ku heeb ah hoggaanka kooxda. Madaxda ahlu sunna ayaa wali ku sugan gudaha xarunta Inji waxaana dowladdu ay isku dayeysaa inay halkaasi ku godoomiso. Ciidanka dowladda Jabuuti ayaa ku guuleystay joojinta dagaalka waxaana ay ku guuleysteen in labada dhinac wada hadal galaan inkastoo mar dambe wada hadalka fashilmay sida la sheegay. Dhanka kale wararka qaar ayaa sheegay in madaxda sare ahlu sunna ay ku adkeysanayaan in loo furo marin ama wado si ay uga baxaan dhanka Hurshe oo isla gobolkan ka tirsan. Wasiir hore Cabdisamed Macalin Maxamuud ayaa beesha caalamka u gudbiyay dalab ah in ciidamada AMISOM loo ogolaado si ay wadada ugu furaan intay ka baxayaan magaalada dhuusamareeb. Wararka ay sheegayaan in dalabkaasi uu diiday ra'iisul wasaare Kheyre oo howsha si dhow la socda. Magaalada dhuusamareeb ayaa inta badan dadkii ku noolaa waxay xalay ku hideen duleedka magaalada kadib markii shalay ay ka barakaceen. Maamulka ahlu sunna ayaa ku eedeeyay dowladda inay ka dambeysay isku horimaadkii halka maamulka Galmudug ee madaxdu ka yahay Axmed Qoorqoor uu ku eedeeyay ahlu sunna inay ka dambeysay dagaalka. Dowladda Soomaaliya ayaanan weli wax war ah ka soo saarin dagaalka dhuusamareeb iyo Gurceel ka dhacay shalay oo ay ku lug leeyihiin ciidamadeeda. Sidoo kale warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan ahlu sunna gaar ahaan kuwii ka dagaalamaya xarunta Inji ay isku soo dhiibeen ciidanka dowladda walow ciidanka aan la soo bandhigin ahlu sunnana aysan ka hadal. Kenya ayaa ka hadashay eedeyntii cusleed ee uga timi dowladda Soomaaliya. Dowladda Kenya ayaa ka hadashay eedeyntii cusleed ee shalay uga timid dowladda Soomaaliya oo sheegtay in Nairobi ay faragelin xoogan ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya. wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in dowladda federaalka ay ugu yeerayso dowladda Kenya inay si degdeg ah u joojiso xadgudubyada ka dhanka ah madaxbannaanida Soomaaliya iyo falalka xasilooni darrada ah ee ay ka wado xuduudda labada dal. Afhayeenka dowladda Kenya Colonel Bruce oo la hadlay idaacadda BBC-da ayaa sheegay in Kenya aysan weli helin dacwad rasmi ah oo kaga timid Soomaaliya marka laga reebo war saxaafadeed lagu baahiyay warbaahinta. Waxa uu sheegay in haddii Soomaaliya ay dacwad qabta ay tahay inay soo mariso safaaradda Kenya ay ku leedahay Muqdisho. Kama hadli karno waxyaabaha ku qoran war saxaafadeedka ilaa iyo haatanna ma lahan waxna soo gaaray dowladda Soomaaliya kamana hadli karno waxyaabaha ay ku waramayaan warbaahinta marka wax dacwad ah oo naga soo gaaray Soomaaliya haba yaraatee ma lahna ayuu yiri afhayeenka. Haddii ay jirto cid wax ka taabanaysa dowladda Kenya waxaa jira wadiiqooyin loogu talagalay oo ay tahay in loo maro oo lagu dacwoodo marka wax dacwad rasmi ah oo inaga soo gaartay safaaraddeena Muqdisho ma jirto.
afhayeenka oo ka hadlay joogitaanka Cabdirashiid Janan oo baxsad ka ah dowladda Soomaaliya magaalada Mandheera ayaa yiri mana jiro sabab aanan u martigelin qof baxsad ah. afhayeenka oo wax laga weydiiyay xiisada balada Xaawiye gobolka Gadow ay isku hayaan ciidamada dowladda iyo Jubbaland ayaa sheegay in Kenya ay sugayso amniga xuduudeeda. ka dowlad ahaan shaqadeena waxay tahay inaan ilaalino xuduudaheena iyo inaan xaqiijino haddii uu isku horimaad dhaco inuusan u soo gudbin xadkeena si aynan u xaqiijino difaaca shacabkeena, ayuu yiri afhayeenka dowladda Kenya. dowladda Soomaaliya ayaa bilowgay bishan dowladda Kenya ka dalbatay inay soo gacan gelisay Cabdirashiid Janan oo sheegtay inuu 28 Janaayo ka soo baxsaday xabsi lagu hayay tan iyo bishii Agoosto ee sanadkii hore. madasha xisbiyada qaran ayaa maalmaha soo socda sida lagu waramayo shir uga furmaya magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. waa shirkii ugu horeeyay oo dibadda ah oo ay yeeshaan tan iyo markii madashan looga dhawaaqay Muqdisho dhamaadkii bishii Oktoobar sanadkii hore 2019. xisbiyada ku mideysan madasha oo gaaraya ilaa 6 xisbi ayaa waxaa min xisbi kasta ka tagaya Istanbul min 3 xubnood. sidoo kale madaxweynayaashii hore ee dalka hoggaanka ka ah madasha ayaa iyagana lagu wadaa in ay ka qayb galaan kulankan. tirada dadka ku dhintay dagaal beeleed ka dhacay Itoobiya ayaa korortay. saraakiisha dalka Itoobiya waxay sheegeen 12 qof ay ku dhinteen halka 7,000 oo qof ay guryahoodii ka qaxeen kadib dagaal beeleedyo ka dhacay gobolka Gambeellada. in ka badan 400 oo guryo ayaa lagu gubay halkaas halka la dhacay 300 oo neef oo geel ah. dagaalka ayaa ka dambeeyay kadib markii la dilay sargaal maxalli ah oo ka howlgeliyay deegaano ay ku nool yihiin qoomiyadda Run. dagaalada ka dhacay gobolada Gambeellada ayaa loo aaneynayaa baaritaan dhanka dhulka daaqsimeedka ah. Itoobiya waxaa sare u kacay dagaalada u dhaxeeya qoomiyadaha qaar kaas oo ay ku dhinteen 100 qof halka malaayiin kalena ay guryahoodii uga barakaceen. ugu dambeyntii Turkiga ayaa muhaajiriintii uu ku hayay dalkiisa u fasaxay qaaradda Yurub. dowladda Turkiga ayaa shaacisay in dhammaan ay fasaxday muhaajiriinta ku sugan dalkeeda ee doonaya in ay u gudbaan dalalka Yurub. saraakiil ka tirsan dowladda Turkiga ayaa laga soo xigtay in xukuumadda Ankara ay ka baxday heshiiskii sanadkii 2016 la gashay midowga Yurub ee lagu joojinayay muhaajiriinta dalkaasi ku sugan ay u gudbaan qaaradda Yurub. sargaalka ayaa sidoo kale sheegay in booliiska saraakiisha ilaalada xuduudaha lagu amray inay ka warwareegaan qaxootiga doonayay in dhulka iyo badda ay ka galaan dhanka Yurub. saacado kadib warkaasi ka soo yeeray dowladda Turkiga ayaa waxaa koox muhaajiriin ah ku sugan Turkiga waxay ku dhaqaaqeen dhanka xuduudda dalkaas uu la wadaaga Greece iyo Bulgaria si ay uga galaan dhanka Yurub. sidoo kale dadkan ka tahriibaya Turkiga ee aada Yurub waxaa ka mid ah Soomaaliya aad u fara badan. inta la xaqiijiyay dadka tahriibayaasha ah ee haatan Turkiga bilaabay inay ka baxaan waxaa u badan sida la sheegay dalalka Syria, Pakistan, Suudaan, Itoobiya iyo Soomaaliya. saaxiibayaal waa